Soomaaliya ayaa ku dhaganaya mowduuca maanta dabka ii saaran aan rabo inaan isla wada ogaano dhammaanteena. qabiil waxba ay ka socon waayeen dawladnimada Soomaaliya way soo yimaadaan maxay qaadaan Soomaaliya toosoo dheetana way ooyaan shirarkooda wax sareysa wallahi waa kan Ilaahay soo hadeeyay abaar markay ooyaan bay istooranayaan oo qolo fanaaniin gabaydo oo salaatiriyo calan la wado oo ay kala sabay ayaa dawlad la doortaa dawladda marka hore la dooranayo reer waliba wuxuu isleeyahay ama madaxweynaha heli ama ra'iisul wasaaraha heli ama kanbaad heli qolo ma soo baxaysa qolo markay soo baxdo inta dambe waxay dhahan waryaade nimankii reer hebel baa meesha qabsadeen yay inagu dawladoobin hadaba caga haya afartiisa sano caguun baa la hayaa ilaa reer hebel baa laga ilaalinayaa magaca iyo maamulka iyo maamuuska afar sano markaynu halkii u taaganahay ayuun baa haddana heesihii dib loo qaadaa Soomaaliya toos waa ka shirkii 20aad bay noor ummad 20 goor shirtaad aragtay waan dawladu u dhalanaynin كيف يمكن إذا ما ها مسألة مينا شرين ما ها مينا دولة سمين ما ها وحا مسألة وحويا كالجرون ريفوليوشن بينه وبعنا وحنو بعنا إذا غنبدل ولا إذا غنبدل وما تصل ذلك يدو قيلة يوم الحوينة يدو قليلة يوم ماموس كيدو قيلة يوم وذا مخدرة وما قفوا لما وحسوا قارا وحضيو وما قفوا لما وحكستوا قادرة ينتهي بضاني ده ما شفته واحد سيريدنا الدولة دي هلا قاقيقة وحل وراي محد الدولة ده وقيب والدولة محد كايدونكو أهل التقوى سنة هدي مدحوين لغا يوحو يسبد الميان وهي الدولة نمد وأمد نين معها قفية لباية صدح معها وأمد فكرة رميستي أو حقاضتي أو كسعطة هدان تاسيتشرين قفية لباية صدح يكو ضاعت سنة هدي لقيو هو انتي كلا عقاه يسمحوا سبينيا نغير هبل نبور نغنى يا سمدا سيارة لي مركم ايش اتغير لذهب الذي كلنا وحيلين عقاه يديك وجود دولة دوبني Soomaaliya dhibta ka taagani waxa la waayay ismaqal iyo kala dambayn nabigu leeyahay usikum bi taqwa Allah iyo was-sam'i wat-taa'ah waxaan kaloo idin kula dardaarmaya ismaqal iyo kala dambayn haday shirkad tahay haday masaajid tahay haday urur tahay haday xisbi tahay haday dawladnimo tahay nolosha dhammaanteed administration bay ku salaysantahay maamul bay ku salaysantahay maamul ma jiro hadaan madax iyo mijo kala lahayn dad wada simanay maamul maaha waa inay madax iyo mijo kala leeyihiin madaxnimana ma jirto hadaan la aqbalaynin madaxan la dhageysanaynin madax baad nootay waxna ka dhageysan mayno kuna yeeli mayno de madaxnimo ma jirto يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا إنه هذين الصوماليين وحنا قادنا طريقة أين يرايا دولتي وينيد ولا قويشين واي إنك لا قوية قول إنك لا قوية وين يرايا دي غير كهشين واي لبا سلطان السماء كوه هساسي واي صدح عاقل السماء وين يرايا حل كينو هاتو قبيل كيهاي هاتو الدولة يهاي هاتو شركة يهاي شركة الحوالة الاسكندر يسيو بمونسانتي وشقين يسو ايا لوراني يلا بدي ودادي هيستيبا اسقبطيو وكو كلا بحل من لبا قارو قاته من لبا قرو قاته وين يرايا حل كينو halka dunidu ay tahay mushkiladu markay dhacdo war mushkilada xal ma u heleynaa ma jirtaa solution kaga bixi karna qaab aynu horo wixeenan xooggeeno inaan kala dirin inta mushkilada ma ka saari karnaa meesha tan aqligu saas oo qumanaynu keeno laakiin inaga aqligeenu wuxuu keenay debaadiyaynu iskaga nooleen baadiya marka la isqabto de gabadhun baa la yiraahdaa awrka ay qabo inta heeriyada saarto waxa ay ku gurato ayaa dabeetana banaanka ilaahay kale ay badsiga guuraysaa ilaa waa dhul wada banaan baayo meesha doonta iska degaysaa aqligii guuritaanka haba inagu jira waa labadiis qabtaaba inay awrta inoo ka furin ay yiraahdaan dabeetana uu ka tago maanta Soomaaliya ka taliya
dowladaynu daynagu markaynu wada hadlayno isu sheeganaa dowlada iyo gobollo iyo waxbaynu sheegnaa dowlad kasta iyo gobol kasta afar wasaaradood oo ka midiba hay-ad UN taaba wax siiso ay hoos tagtaa waxay samayn kartaa ma jirto inay hay-adda ku noqoto mooyaane dhowr wasaaradood UNDP baa u taliya dhowr wasaaradood UNESCO u talisa dhowr wasaaradood Save the Children baa u talisa dhowr wasaaradood kuwa qaxoontiga u taliya hay-adka UN ta ma yiraahdaan meeshan anaga xukunna laakiin afar wasaaradood ba hay-ad bay ku xidhantoo ka taliyaan waa dhammaan Soomaaliya dacal ilaa dacal wasaarad kasta afar wasaaradood kasta waxay ku xidhan yihiin hay-ad kuwaasi ka mid ah waa decentralization kay sheegayeen ee ah dabeetana governmentku inuu UN ta noqdo waxay yidhaahdeen markii hore dowlado centralized ka jiray iminka waa in federaaliyad loo bedelaa bay yidhaahdeen federal states dhibta ka jirtana dadkeeda geystay dadku waxay jecel yihiin inay cid kale eedda saaraan dadku waxay jecel yihiin inay yidhaahdaan Ethiopia ayna jebisay waxay jecel yihiin inay yidhaahdaan gaalada inoo tashatay oo Maraykanka iyo Ingiriiska mayna waxayna la rabaan baad moodaysaa iyaga ayna qaybinaya waxay jecel yihiin inay dowladaha jaarka China maxaa la yidhaahdaa Kenya iyo kuwan baa ina baabiyey waxa kama jiraan runaa isu sheegno innaga isjabinay markaynu jabnayna waa laynaga faa'iidaystay waana sida caadiga bini aadamku u fakaro Ethiopia maxaa dantaada u raacatay soo doqonnimo maaha inaad la timaado meesha Ethiopia maxaa dantaada u raacatay waa doqonnimo Ethiopia masaalixdeeda ilaashanaysa wixii dan ugu jirto laakiin aanay ahayd inaan maslaxadayda ilaaliyo joojiyo Ethiopia waxaan aniga maslaxadii ugu jirin aanay ahayd inaan dantayda ilaaliyo joojiyo Kenya waxa ay wada hadaan maslaxadii ugu jirin aanay ahayd inaan dantayda ilaaliyo Maraykan iyo Ingiriis baan joojiyo waxay wadaan hadaan dan ugu jirin awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وين ندب النولان كرنا ودن كينينا وين تشوقنا وانا النولان كرنا هدينو عقلي كيني ويننا دول نقومي سنية هذا كان تشان إن دول الله تليا الرورة يرمت تشان كرتو ما كوا الله تليا reer galbeedku waxay yidhahdeen dunida badhba wisaaya u baahan isma maamuli karaan in la maamulo u baahan marka ergeyga jamciyadda quruma ka dhaxaysa laynoo soo diraya siduu inoola eego bal inaynu ismaamuli karra iyo waxaynu gaadhnay inay waxa saxayeen iyo dhaqaalahaynu u baahnay inaynu kolba barino dhaano askartiina wax ma yehelin qoladaasina wax ma yehelin oo la yidhaahdo fankaa laydinku darayaa projectka sanadka dambe EU-da idinku daraysa ama USAID baa laydinku daraya wardawarsi cidina kuma noolaato dadna laguma noqdo dawarsi cidina kuma noolaato dadna laguma noqdo dawarsi masaakiinta ku dhargi lahayd haddii cidi ku dhargayso miskiinkan yaa la waxsiiyey dun hayaa imisun buu lahaa yaa la waxsiiyey marka waxaan uga jeedaa Soomaaliya waa burbursantay dhibina way haysataa laakiin aniga aragtidayda dhibteedu ma aha gaal baa soo duulaye dhibteedu waxa weeyaan aniga iyo adiga iyo adeerka iyo ka sii dambeeyaan isdoonaynin haddaynu inagu caqligu lagu wada noolaado keenno gaaladu waxay yidhaahdaan saddex dariiq baa jiro oo bini aadamku wuu u kala baxo bini aadamku inuu iscafiyo iska heshiiyo cid la yidhaahdo nabad waa lagu kala baxaa bini aadamku inuu musaalaxa galo win-win solution waxay gaaladu yidhaahdaan intuu isu yimaado inuu heshiiyo yidhaha war bal annaan guulaysta adnaad guulaysatide adna wax ka taga annaan wax ka tago meel dhexaan isugu nimaadna hore u soconnana wuu kari karaa bini aadamku inuu garramana waa lagu kala baxaa waar heshiin weynaye ha laynoo gar qaado ilaahay kitaabkiisa cid inoogu saar inoogu gar qaada marjaca waxa la isku garramayaan isku waafaqno dabeetana aan garranno kala baxno haddaynu Soomaalina saddexda midna ma ogolin inaynu iscafino iska wada noolaano ma rabno inaynu win-win solution compromise samayno ma rabno inaynu garranno ma rabno laakiin maxaynu rabnaa inaynu ismuquunino inaynu weli rabnaa caqligu inuu shaqeeyo ma rabno weli waxaan rabnaa in muruqu shaqeeyo
maalinba ninkeenna waxoogaa dabaabada yara rooni inta kale inuu yidhaahdo ma idinkaa wax sheegi karaa maalin marka laga yara dabaabada roonaada inuu yidhaahdo maaday gumaysan karaa anna waan jabhaday marka waa un halkeennii baynu ka wadaynaa sidii baynu u wadnaa 25 sano ama 6 sano ama 30 sano la sheegay saa baynu ku wadnay marka waxaan ku soo koobayaa gaalayna ma haysto cid kalena ma haysatay inaga haysanee haddaynu inagu caqli keennana waynu jiri karnaa haddii kalena dee waa laynoo talinayaa ee aqbalaya in laynoo taliyo waxba Itoobiya ku xagxaganina ama Maraykan xagxaganina in laydin taliya aqbala wallahu a'lam